shacabku haddii uu ka u guuxo lama caburinayo lama dilayo kaasaynu raacayna waana ku qasbannahay waxa shacabku isku raacaan inaanu raacno shacabka qaabkan u macnaynayna qaabka qoomiyadaha Itoobiya ka jiri jiray hadda ka hor ay shacabka u yaqaaneen Itoobiya hisb markay leeyihiin qaabkii u yaqaaneen inagu inaan u garanana waa khalad dad baa jira markay Itoobiya hisb ay ka hadlayaan qoomiyad gaar ka hadlaya oo Soomaalidu ayna ugu jirin oo Oromadu ayna ugu jirin oo koonfurtu ayna ugu jirin baa jira inaga deegaankeenna aragtida shacabku inay noqoto aragti koox gaar ah fikirkay qabto shacab laga dhigo oo shacabkan fikirkan anigu qabo iyo ka dadka ila midka ay qabaan inuu fikir umadan ahayn ka dhigaya taw ma aha fikirka noocaas ah hegemonigiina inuu yahay fikir caafimaad qaba ee saxmaha ugu dambeyn kala qaybsanaanta siyaasaddu kala qaybsanaan bulsho ma muujinayso dawladda mucaaradkeedu 11 gobol iyo 93 degmo way joogaan dawladda dadka nasteexa oo la shaqeynayana 11 gobol iyo 93 politics of interest yaa meesha ka jira politics of interest qofku ama qabiila kugu taageero ama qabiil buu kugu taageeri ama interest buu kugu taageeri ama mabda buu kugu taageeri qofka ku mucaaradayana saddexdan buu kugu diidi ama qabiil buu kugu diidi ama interest buu kugu diidi ama mabda buu kugu diidi afkaaraha sida u kala baxay baa dadku isu haya goday magaalada maanta fikir waa lagu qaybsan yahay maamulka dhisan cid dhalisan baa jirta qabiil dahar waa lagu qaybsan yahay wardheer waa lagu qaybsan yahay kala qaybsanaanta iyo tartanka siyaasiyiinta in loo macnaysto kala qaybsanaanta bulsho inay sax tahay uma arko waana wax jiri doona haloo bislaado la isku helayo fagaara dimuqraadiyadeed iyo kala aragti duwanaanshaha hal entertain gareeyo iyo dadku isku si ha u fikro oo cid dhaleecaynaysa inay jirin I think inayna wax maaragtay political reality ah inay tahay aniga runtii ilama aha saas anoo ku soo gunaanadaya dhammaan characterization hadda socda ee la wado waa mid siyaasi ah kolka lagu celcelinaya la leeyahay maanta ay rag waaweyn oo professor sheeganaya oo muxuu ahaayay ixtiraam fara badan iyo aqoon hore naga dhaxayso ay maanta ku doodayaan jijiga ninka jooga xabashi weeye waxa amray xabashi baa talada siyaasadda jijiga xabashi baa go'aysa markuu qofku uu leeyahay ku doodayo aragti garasho la'aan ka timid maaha waa aragti ka imanaysa labeling wax la yiraahdo political labeling qofka inaad astaan u samayso astaanta u samayso markaad ku celcelisana ay dhawowdo faa'iido siyaasadeed ku dhasho irresponsible way sax maaha haddaan taa kaga jawaabna anaguna qofka aan maanta la daba gallo hebel wuxuu taageersan yahay Cabdi Ile way aan la daba gallo isaguna xaq buu leeyahay Cabdi Ile ma taageersan aan ku diidanahay ra'yiga inuu yiraahdo ka dood xaq buu leeyahay laakiin waa dhaqan siyaasadeed meel walba siyaasiyiintu isma naxariistaan dadka walaalaha in arrinta ku kasoomaan maaha dadka aniga jecel iyo kuwa taageersani dadka kale afkaartooda diidan inay ku nacaan oo kula dagaalamaan maadaama ani diidan yihiin anigu kuma taageersani kuma raacsani dadka aniga in nacabna dadka aniga ay aanay inay taageersan yihiin in afkaar ku nacaan uma arko mas'uul baanahay intay ilaahay intii uu joogay baan joogaya inta aan joogo waxaan biyana muxuu ahaayay ilaahay maaragtay afis baan ka weydiisanaya shacabka aan dhex joogana walaalaan ah oo kulligood dad walaa aan wadanahay inta afkaarta maanta isku diidanahayna waxa la yiri Soomaali waxay tiraahdaa qofkaad jeceshayna aasha jeclow inaad bari nacda laga yaabay qofkaad neceb tahayna aasha nacda la yiri barina jeclaata laga yaabay marka inaynu si moderate oo macquul oo cadifad aan lahayn aynu siyaasadda u galayo quman saasay tahay waan ogahay in haddana siyaasaddu ay tahay wax la isku noocdanaa jira qofka dantiisa ka hor istaagtay qofka dambiyo u galay ku qaaday qofka aragtida siyaasadeed uu waday mid aan ahayn wado nac iyo kala fogaansho way leedahay sida loo arko bulsho isnacday ma siyaasiyiin istiidan arintaas ku soo goobi lahaa aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa madasha soo dhaweynta iyo sida asluubta leh dood inoogu dhacday waxaan aaminsanahay inaan ku dadaalay inaan si xaqiiqo uga jawaabno su'aalaha wixii ku qancayna ku mahadsan yihiin waxaan ku qancayna fursad kale oo insha Allah ama ay ku qancaan ama wax qanciya ay ku arkaan in ma doontaan aaminsanahay intaasaan ku soo koobi lahaa dhankayga aad baan isku mahadnaqayaa dhageysiga iyo ixtiraamka iyo sida waqtiga aad isiisaan mudan madaxweyne adiga mudan intaan leeg baan ku mahadnaqaynaa dadka ka soo qayb galayna ayaguna waan mahadnaqaynaa runtii waxaan kugu mahadnaqaynaa inaad ka mid noqotay saaxiibada qolka maaragtay xog iyo xaldoon inaad naga aqbashana mar kale waan kugu mahadnaqaynaa waxaanan rajaynaynaa oon filaynaa in mustaqbalka aan maaragtay aad si uun xiriir ugu yeelan doono qolkan aad xiriir uga yeelan doonto maadaama ay bulshadii maanta social media ku wada xiran tahay midda kale waxaan rajaynaynaa oon kugu taageersanahay in dadkeenu ay midoobaan
oy isku meel ma mari karaan oo taas waa arrin maaragtay ka hor imaanaysa xataa waaqica caadiga ah laakiin waxyaabaha masiiriga ee muhiimka inay u midoobaan oo at least haddii xataa kala ra'yi gedisan yihiin ay isxushmadeeyaan oo ra'yigooda isku xushmadeeyaan aanay yeelano waxyaaba maaragtay red line ah oo aanan isku khilaafi karin waxyaabaha siyaasadda la isku khilaafo laakiin waxyaabaha muhiimka oo masiiriga ah inaynan dadka Soomaalida ay saad sheegayso aynan isku khilaafin aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol ku mahadnaqaynaa madaxweyne waad fasaxan tahay thank you very much leave matawani meesha leave matawani hoose leave quietly ما سن بشر ويا ولا